جزاك الله خيرا. سائل كان وحليه هي سؤال صديقي كنتناد شيخ مالين بان دين تعايي حاس نوان ليه هي gabadhii ma iga furantay hadaan dambiga ka toobad keenay horta qofka haduu diinta caayo ama Allah subhanahu wa ta'ala ama nabiga alayhi salatu wassalam ama quraanka iyo wixii lamida qofkaasi waxa weeye diinta ayuu ka baxay wa kaafaru bi ittifaq almuslimin inuu diinta ka baxayna wala isku waafaqsan qoran mayna waa dambi وقاللمو إن بدنا برشدنا كمية مركو ينقول فافي الدين عايب إله عايب قال عدانا هدية يا أركان والله غيا بيو إنه الله سبحانه وتعالى دين خلطان وكو عابد وقال دين الإسلام كما هيستو لكن إلهي هو أميسية وحلا غيا بإلهي إنه احترامي وحكحر وكقال لمحر قفك الله سبحانه وتعالى أفلقى ديني يا مقدسات كيس إلهي عايني يا الله سبحانه وتعالى عبدالله عيني أريد حنو استعمالي تدكى قال ذا أينو قال ذا أنقانو كناك قالسا وقال لي مهلكي قدام بيسين الله سبحانه وتعالى إلا أفلقى ديني يدين تيس إلا عايني أحكامتك كدلانيسا waa badanta waxa kamida gabadhiisu inay furmayso gabadh muslimada ayuu qabay muslim buu haduu ridoobo gabadhaasi waa ka furmaysa laba xabaalaha muslimiinta lagu aasimay waa laga dheeraynay waayo waa mid gaar lambar 3 wuxuu mutaysanayaa dil illa dilo ayuu mutaysanayaa lambar 4 عيدنا دخل مايس إسقنا الله دخل ماي إسنا واحد دخل ماي إسقنا واحد دخل ماي أحكام بدل ما كان دلناس لكن واحد يكسر ريبين هدو مسلمها أو ردوا بي وقالوا بي أو قبل يسيو عددي كسرنا وأنا عدد بحين هدو طابت كانوا أو دبوا وصل نقضه oo wixii uu ku gaaloobay ka toobad keeno xaaskiisu waa xaaskiisii mahar cusub ma baahna waa haday ciidadii ku sugan tahay haday cadad baxdayna waxba kama dhaxeeyaan marka uu soo islaamo ayuu dib u maharsanayaa marka waxay leenahay xaaskiisu waa ka furmaysaa laakiin intay ciidada ku sugan tahay haduu soo noqdo oo Allah uga toobad keeno gaalnimadaas waxa weeye xaaskiisii bay tahay oo sideeda ayuu ku qabayaa wallahu ta'ala